maxay sameeyeen gabdhaha TikTok ee xabsiga lagu xukumay ku soo dhawaada channelkeena Arab 24 dadka saameynta ku dhaxleh baraha bulshada ee xabsiga loo dhigay muuqaalo dhaqanka bulshada ka baxsan awgood ururada u dooda xuquuqda aadanaha ayaa dawladda Masar ka dalbaday in xabsiga ka sii deyso koox dumar ah oo saameyn ku dhaxleh baraha bulshada kuwaasoo dhawaan loo xirxiray saameynta muuqaalo wax u dhimaya shuruucda qoysaska u yaala ee dalka Masar gabdhaha TikTok ayaa xabsiga loo taxaabay kadib markii ay shaaciyeen muuqaalo baraha bulshada la iskula wadaagay oo muujinaya iyagoo qoobka ciyaar sameynaya dhargaar ahna xiran shan ka mid ayaa horeyba loogu xukumay midiiba 2 sano oo xabsi ah waan argagaxnay markii aan maqalnay arinta wax qaldan ma aysan sameyn gabadheena walaashay ma aha dambiile kaliya waxay rabtay inay caan noqoto oo dad badan ku soo xirmaan ayay tiri Raxma oo ah da'dii ka weyneed gabadha lagu magacaabo Mawadda al-Adam oo muuqaalo ay baraha bulshada soo gelisay awgiis loogu xukumay 2 sano oo xarig ah Mawadda oo 22 jir ah waa ardayad dhiganaysa jaamacadda waxaana loo xukumay inay ku xadgudubtay sharciga akhlaaqda qoysaska dalka Masar waxaa xabsiga loo taxaabay bishii May ee la soo dhaafay kadib markii ay muuqaalo soo gelisay TikTok iyo Instagram waxaana laga arkayaa iyadoo bishimaha la raacaysa isla markaana ku ciyaaraysa dhar kuwa gabdhaha waxay sii xirtaan dacwad ogayaasha oo muuqaaladeeda ku tilmaamay kuwa aan waafaqsaneyn dhaqanka bulshada hooyaday sariirta kama soo degi karto hadda xilli kasta way oysaa mararka qaar saqda dhexe habeenkii ayay soo kacaysaa iyadoona weydiinaysa in Mawadda ay guriga ku soo laabatay ayay tiri Raxma Mawadda waxay ka mid tahay 5 gabdhood oo lagu xiray xukun la mid ah keeda waxaana u sii raacsan ganax lacageed oo ku dhow $20,000 shantoodaba waxaa loo yaqaanaa gabdhaha TikTok waxaana ku jira haweeney xidig ka ah baraha bulshada oo lagu magacaabo Haniin Hoosam iyo 3 kale oo aan magacyadooda la shaacin Raxma waxay sheegtay in walaasheed ay baraha bulshada dhar ugu xayeysiin jirtay dhowr shirkadood rajo fiican oo mustaqbal ah ayay lahayd waxay ku riyoon jirtay inay atariisho noqoto sida ay sheegtay hay'adda xuquuqda aadanaha u dooda ee Amnesty International dacwad ogayaashu waxay Mawadda u adeegsadeen 17 sawir oo iyadu leedahay kuwaasoo ay cadeyn uga dhigeen kiiska ay ku soo oogeen laakiin Mawadda waxay sheegtay in sawiradan la shaaciyay kadib markii teleefankeedii laga xaday sanadkii la soo dhaafay maxaa iyada loo bartilmaameedsaday Mawadda walaasheed waxay sheegtay inay ka walacsan tahay waxa ku dhacay gabadhooda racfaan ay qoyskan qaateen 17 bishan Agoosto Raxmana waxay rajaynaysay in walaasheed xukunka laga qafiifin doono ugu yaraan maxaa iyada loo bartilmaameedsaday waxaa jira atriishooyin badan oo ku jira baraha bulshada cid kuwaas taabata ma jirto ayay tiri iyadoo si cadho leh u hadlaysa Mawadda way suuxday markii ay maqashay xukunka ku dhacay sida uu sheegay qareenkeeda oo lagu magacaabo Axmed Bakiiri aad bay u niyad jabsan tahay xukunkan aad buu ugu adag yahay in xabsi la geliyo xal ma aha xitaa haddii muuqaaladeeda ay ka soo horjeedaan akhlaaqda bulshadeena xabsiga wuxuu abuuraa dambiilayaal dawladdu waxay xitaa taas beddelkeeda u diri kartay goob dhaqan celin ah Masar waa wadanka ay shacabkiisa aqlabiyad ku leeyihiin muslimiinta akhlaaqdana laga ilaaliyo dadka qaar waxay muuqaalada TikTok u sameeyaan qaab waafaqsan anshaxa bulshada hase yeeshee gabadhan ayaa lagu eedeeyay inay muuqaaladeeda u xiratay dhar aad looga arkay jirkeeda dadka qaar waxay ku doodayaan in gabadhan ay iska damaashaadayeen oo aysan u qalmin xabsi Mawadda waxay shaar u xayeysiin jirtay dhowr shirkadood sida ay walaasheed sheegtay hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ku baaqaya in gabadhan la sii daayo waxay ku doodayaan in xarigoodu uu yahay talaabo kale oo ay dawladdu u qaaday caburinta xorriyadda hadalka waxa kale oo ay dawladdu Masar ku dhaliilayaan inay doonayso sidii ay u xukumi lahayd waxyaabaha ku baxa baraha bulshada tan iyo markii uu madaxweynaha ay militariga taageersan yihiin ee Cabdilfataax Siisi xukunka qabsaday sanadkii 2014 hay'adaha xuquuqda aadanaha ee maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ahba waxay dawladdiisa ku eedeeyeen inay gacan bir ah ku qabato shacabka daawadayaal intaas ayaanu ku ekeenaynaa mowduuciini ahaa maxay sameeyeen gabdhaha TikTok ee xabsiga lagu xukumay